وكنت قريب شروينها جالية الصومالية وغادية تلك صوت أفريقيا halkaasoo ay isugu yimaadeen boqolaal qof oo aad u qiiraysan karaacaysan dhibaatada ay bariyaha dambe dowladda Itoobiya ku haysay dadweynaha Soomaalida ogaadeen inay gumaysato iyadoo gobolada sida Dhagaxbuur, Nogob iyo Qabridahare iyo Wardheer laga soo sheegay xasuuq baan sidoo kalena gobolada kale ayaa isaguna xasuuq qarsoon ka jira jaaliyada Soomaalida ogaadeen ayaa sida loo wada xasuustay dalka South Africa ayaa waxay gudbisay dacwad ka dhana dowladda Itoobiya bishii February ay soo dhaafnay dacwadaas ayaa meel adag maraysa waxayna ka qalgelisay gumaysiga Itoobiya oo ay ku kaliftay inuu soo diro wafdi uu kala xaajoodo dowladda South Africa balse arrintan mashaqada la yeeli lahaa haddaba jaaliyada Soomaalida ogaadeen oo shirweynaha sanad walba ku qabsata xarunta jaaliyada oo ku taala magaalada Utrecht oo ah duleedka magaalada madaxda gobolka Eastern Cape ee dalka South Africa ee Port Elizabeth ayaa wuxuu soo gabagabay maanta oo ah maqribadii ay soo galeysay axadu haddaba kadib shirka ayaa waxaan rabnaa inaan la dhex qaadno dareenka dadweynaha mikrofoonka haddaba waxaan jeclaan lahaa waxaan arkayay markii uu shirku socday telefoon ka soo dhacay gobolka Dhagaxbuur oo lagu soo sheegay dhibaato halkaas ka jirta lana sheegay gabadh xanuunsan in isbitaalka magaalada Dhagaxbuur ay Itoobiya ku dib ugu geysteen iyaga oo meesha ay ka daaweyn lahayn dib la xal loogu geystay walaal ku soo dhawow barnaamijka ilaas magaca كونفور أفريقيا وحنا السلام يا وحي تفي إلى سما نجدا وضع أما نجدا جلسة أنا لما ترسكرين يا أما قبل كمان كسر شجع أما الصوماليين تكلمها هذا أما الإسلام كلها هذا يلا إسات هاي ولما كسر كوب كرا لبعتوين يحسوق كتيرة وضن كاس أدونك أما هو الأرك هي أما هو النقلة إنك صار صحافة لها بعد عواء وقلين هذانا لما كسر كوب كرا لبعتها ما أنت نوجد البيسي كوبا كارم بينهم ديان سلك بينهم دلام أنا ضدكنا ونور بيشي تقول كل دان قبلها نجوا كسلان لكن هذا ساك عني هو حليس أو شيء ولا شيء أو حنون سنسي أو جوز حنون يو جبار يرى أو ولي وحنا دلنا أوجبا جوز كذا دختر شل الله كاني يلا أو نور أو جوز كون حنون يا أيها وحال يجيك بانو قرينا دختر كحال السيحي ولا نسوي كذا ساق مركي لو يمنا تيولا قشيبة لو تري إلا جالك إلا هالك حدود كهوسيسا إلا لبعض الناس أيام الجوية هرجيبة لجبهية شركة أن مرنا لسعر كريم لأن أرك كريم نفتنا كوتشرتو أيام ساق لو تري كل على الحماضة يحسوقة يتعدي الجميسية وده كمان كتير واحد كل كرم معها لكن ما أنت تاعي إنه يجود البيت أنا أيوة على النبض هذا يدل على الدوينين غير أولاده هي الحسوقة يوم يكملها هاي لكن مناطق مننا ولي غير اللي المشاهين إن كستون هذا التلفون كبر سنة وروا إن كور دانو نورا في عنا لو مشاهين وتروح حركي ولا تبيو كريس بناك يالان أيها يوسف شريف مركا إلهي وحنا كبر يا هيا إنه جميسك نجد القاضي ومدى إسلام في الدوينة الصوماليين إن ينجوا عويان كاتحلا يمسك يمر ولا لهما ويا مكبر يا هنا تذكر عدي دبرتين تدارك أنا وهاي مالك صوب شيء الصوماليين وحنا كأصلا هنا إن نجد أيام وإن أركان تذكر كذا دبرتين وهاي وحنا كلامي أن هذا هاي الكلمة هذا الله غيره أردن أن قد كريم هل قضى بارو شيء يا ددوينها الصوماليات ولا يقوم يستقال بالله درنا قوم يا رصاص يا قنطالان حنبارا قريب مهر كرقربها كرقران هاي مركو قوة أنقذية مركو يديرت بوحدنا ويقول قلولا قرقين والاك سيدا أركا قوها أما قوي حلالها أما قوشا بالك أو أنقورا بحلين قيدها كنا والهي قوان كيغ والابا أما قيري أما قول سومالي قرقات قوبي كورتي قعل يطلبا أما قريهين ويدرس قول باينا دحمرو قبديه أبتاجر ولا لو قال مشوسي ولا لو هيقا قدانين قسين هيقو دايدين هايسيسان لبقيني كان سومالي وين بافرين تأوفريا فاتحانا نوعاوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفرين قيرو iyo wadaniyad ku dheehan tahay runtiina aan rajaynayo dadka Soomaalida ee daawanaya in hadii damiir islaamnimo iyo mid Soomaalinimo uu ku jiro inay ka tanqanooyeen doonaan walaalahooda Soomaalida ogaadeen ee gumaysiga Itoobiya oo cadawga soo jireenka Soomaaliya
وكل جزيرة ذلك أوغادينيا sidoo kale waxaa la ii sheegayay in maalmihii ugu dambeeyay ay ka jirto gumaysiga Itoobiya iyo Maleeshiyada u shaqeysa ee dabadhigka ay ka wadeen kursi wadar ahaan oo loo geysanayo dad gabdhihii Soomaaliyeed ee qaaliga ah ee ay u suurtagelin in gumaysiga Itoobiya uu la hasaawo iyagoo ku qasbaya waxaana la ii sheegayaa in gobolka Nabad tuulada Lagida 16 gabdhood oo ku soo bishan ay ku jirna 13 waan ka sii gudbayaa waxaan u sii la dhexqaadaya dadweynaha shirka soo qayb galay wala la magacaaga iyo dareenkaaga sida uu yahay dadka marka dhageysatay gaar ahaan gobadhii dhagax buur lagu jirtilay sida aad u aragto bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan salaamayaa saxaafadda iyo TV-ga Ilays iyo dhammaan walaalahayda kale ee ka soo qayb galay maxay xafladan iyada ah ee taariikhda Ogaadeniya ee Koonfur Afrika magacayga waxaa la yiraahdaa Ardo Shafiic Maxamed walaal dhibka nahaysta iyo xasuuqa lagu hayaa mid hadal lagu soo koobi kara maaha marka ugu horeysa waxaan ka codsanayaa saxaafadaha adduunka kuwa islaamka iyo kuwa kalaba in naloo sii daayo codkanaga inaan maxay ahayd dhibaatada lagu hayo aanu sheegano ee gumaysiga Itoobiya uu nagu hayo ta kale waxaan mar labaad aan ka codsanayaa in saxaafadaha nadiiday waraysiga naga qaadaan maxay ahayd dhibaatada nada qariya ee aan ogolayn dibka nagu hayso gumaysiga Itoobiya inay ka sheegaan saxaafadda cadaalad haday jirto ama dawlad madax bannaan oo international aan ku hoos noolahay annaga oo shacab masaakiin oo la dulmayo inay dawladda South Africa nagu caawiso dhibkanaga inay saxaafadaha adduunka ee wadankooda ka howlgala hadayna daacad ahayn wax shakhsi leeyahay ay tahay inay naga qabtaan oo codkanaga la madax banneeyo sida saxaafadaha hadlahayo ee adduunka ka howlgalaya noo madax banneeyo mid kale waxaan kaloo aan sheegayaa xasuuqa iyo dhibka lagu hayaa inuu mid badan yahay kufsiga iyo jirdilka iyo xasuuqa iyo maxay dadka xabsiyada aan intii loo taxaabay warlooyay meel ay hadda ku sugan yihiin waqtigan xaadirka reer dhan oo degan oo meel deganaa oo dad la gelinayo oo ilmaha u yar iyo odayga halka ku basaya oo qof islaam oo nacam ka warbixinaya una jirin magaalooyinka dhan ee jiray ee maanta maxay ahayd dambas madaweyhan wax jooga una jirin ciidamada Itoobiya ee nagu gabadfalaya 24 saac ee joogtada ah ee maxay ahayd dadka iyaga aan loo ogolayn maxay ahayd cuntadii gurigii laga gooyay ee ceelkii biyaha laga fadhiistay ee xoolihii laga faraha looga bixiyay ee maxay ahayd garoon kubad lagu ciyaaraan nahay run ahaanta markii laga hadlo waxaan leenahay saxaafaduhu waxa u diraan dad soo arka oo maxay ahayd loo madax baneeyo Itoobiya inay gumaysiga naf iyo maal iyo jirdil iyo xabsi iyo kufsi iyo dhac iyo boob iyo dil nagu haysto adduunka dhan ha ogaadaan walaalahayow rag iyo dumar ilmo yar oo 7 jira iyo oday 9 jira wadan aan midnaba loo kala aadiyeen baanay dilka reero dhan oo meel deg jiray oo qoysasa ayaan waxba ka jirin ayaan maxay ahayd aabahay bay dishay walaalkay bay dishay adeerkay bay dishay inta garanayo dhan bay dishay annagii baa cabsi iyo maxay ahayd silac nafta kula soo carafay wadamo kale waxaan idinka codsanayaa markasta saxaafadaha intay annaga wax noo indisaan ay dhahaan waxbaan sii daynaynaa ayaan maxay ahayd weli aanan arag saxaafad madax bannaan intayna waraysato sii daysa dhibkanaga waxaan idinka codsanayaa oo ka codsanayaa saxaafadaha adduunka oo kuwa South Africa iyo kuwa islaamka ka codsanaya inay maxay ahayd sii daayaan waraysiga isaga deegaanka waa dhamaan meesha joogaanba dalka waadiga waa mugdi maxaa ku dhahay bisallaha iyo cunaha rag iyo haween aqoonyahan iyo ardayda cid kasta oo maxaa ku dhahay u kacay Ogaadeniya waa dad dulman waa dad daban waa dad leeyahay waa dad aan xuquuq lahayn waa dad aan jaamacad lahayn waa dad aan caafimaad lahayn waa dad aan looyar lahayn waa dad maxaa ku dhahay xasta iyo aqoonyahan si loo laayo oo dadkii waa maanta haweenka ah ee maanta filimagayada ah maalin kasta la dabayo aqoonyahan macadala maalin kasta la dabayo hooyadii irmaanay meed maalin kasta ay meed tahay wadankana waa mugdi xuquuq kama jirto hay'adi kama jiraan maxaa ku dhahay looyar kama jiro waxaa ka jira oo kaliya boolis maxaa ku dhahay liyu boolis iyo maxaa ku dhahay ciidan ka jira oo maxaa ku dhahay Itoobiya ciidankaana maxaa ku dhahay waxay ku sadaan hablaha
waxay isticmaalaan xoolaha naga boobka ah hantidooda way la wada wareegeen maxaan ku dhahay aabayoganagi way dileen hooyooyinka ay dileen walaahi anigu maartay waa dadka islaamka ah inay waddanka naga in gaara ku eegaan halkaas ayaa waxaan kaga gudbaynaa fikirka dumarka sida aad aragtaan dumarka reer Ogaadeniya oo 3 maalmood ay ugu dambeysay halkan ku sugnaayay oo ka qayb galaya shirweynaha jaaliyadda Soomaalida Ogaadeniya ee dalka South Africa oo aad u fara badan ayaa soo gudbisay karin fikirkooda isaga oo Ilaahay ku munaysay guud ahaan dumarka Soomaaliyeed xishood sidaas darteedna waxaan halkaas u sii gudbayaa ragga oo ka soo qayb galay shirkan ama soo qabanqaabiyay waa mas'uuliyiinta jaaliyadda ومسؤولين تجارية الصومالية وغيرها دولة South Africa وهلكن كسر من 3 مالمود la soo dhaafay waxaan ku horeysiinayaa Cabdiraxmaan Saciid كسر هو guddoomiyihii hore ee jaaliyadda arrintan aad uga soo abaabulay kana warqaba suuqa ay Itoobiya ka wado Ogaadeniya tababarkooda dacwadda iyo arrimaheeda sidee baad u aragtaa xasuuqa ka socda Ogaadeniya maxaad ka qabateen boqolaal qof oo rag iyo dumarba isugu jira halkan jooga waddanka hore baan joognaa dacwooyin baa jira halkee bay idiin marayaan maxaase la filayaa in Itoobiya dhibaatada qarsoon ay dadweynaha shacabka Ogaadeniya ku haysa laga qaban karo بسم الله الرحمن الرحيم نقول الله سبحانه وتعالى أمانة كله حنونا علني بعض إليك دمان صحافة بعض الشعب في أوغادينيا أو كحل دبعتنا الوهية الشعب الصومالي أوغادينيا فرنسي إمانة أو سوق أوغادينيا شرويني جالية الصومالي أوغادينيا وده كونفرنسكا ومدرسة المال السعودي ومالي فرحت يوريهين فرنسي لدرين الكرم dhinaca kale waa maalin murugo aad fara badan aan dareemahayo dhammaan asdiqada iyo saaxiibada shirka soo qaybgalada ka shaqeynada wajigooda ka muuqata waa dhinac waxaan dareemaynaa guul waxaanu dareemaynaa in uu shirkayagii kusoo dhammaaday si guula ayna ka soo baxday natiijo wax ku oola oo aanu rajaynayna mustaqbalka inay anfacdo dhammaan shacabka Soomaalida Ogaadeniya midka jooga waddankan iyo kale qurbaha joogta iyo inta gudihii joogtaba natiijada maanta ka soo baxday shirkan waxaa murugaa in dadkii uu ku jiro dhibaato aad arkaysaan sida hadda gabdhihii iga horreeyay ay ka hadlaayaan dhibaatadaas oo aan hadda mid joogta haddaan usoo laabto su-aasha maxaad qabateen oo dacwo ka qabateen sidaas saxaafadaha horey uga dhegeysateen waxaa ka hirgashay waddanka koonfur afrika dadaal dheer oo jaaliyadda Soomaalida Ogaadeniya ay u gashay in la gudbiyo dacwad كوجهن إلى النقطة دعوة إنترناشنال لنا سوى تابع دعوة محكمة عدالة اتكسر ومسؤولك لبعضها لوعي الشعب الصومالي بالمدنية بلي هذا الوجود بي دعوة سيد بيسي واحد عايز السوق بعد وبلارا ولهو هذا الفرابضان حالة عسيرية الشعب الصومالي بالمدنية تطابق الله انتي الظلم بالوجود لي تنادي دونتي لا تنادي رحمة فورابيو waxaan u tacsiyanayaa dhammaan shacabka Soomaalida Ogaadeniya ilaahay bedel khayr qaba uu siiyo ruuxii dacwadu way gudubtay waxaa loo aqbalay si guula oo successful waxaan rajaynaynaa in natiijadeedii insha Allah taala in la gaaro annaguna waxaanu guul tababar ku gaarnay hadafkana waa dacwada si caalami ah oo international u gudubto waxay u gudubtay si caalami ah waxa aqbashay dawladda Koonfur Afrika meel walba oo ay ku saxray in la bariyo waan marinay meel kasta oo ay ku saxray in laga asriyana waan ka asrinay waxaana si official loo cadeeyay media hadda laga cadeeyay dacwadaas inay gudubtay waxaana markhaati u noqday gumaysigu inuu ka gilgishay socdaalka ugu horreeyay sirdoonkiisa u soo diray in waddanka Koonfur Afrika ay soo gaareen wajigada ballaaran ay la kulmeen waxaa ka mid ah shirkan go'aamada ka soo baxay in la xoojiyo dacwadaas oo la xoojin doono insha Allah taala lana farshilin doono qorshaha hordhaca oo aan ogaanay qorshaha Itoobiya ugu talagashay dacwadda inay kaga hortagto oo aan noqoliyo ka mid ah ama gacanta ku hayno taas ayada dhig waa guusha ama dhinaca looda ka baxsanahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka cusub ee aan ku dooranay shirweynahan oo ugu horeeyo mudane gudoomiyaha naga cusub Bashiir Maxamed Sallax oo insha Allah taala aan u rajaynayno inuu noqdo gudoomiyihii calanka Ogaadeniya maalinta la taago ka qayb qaadada matalayaana safaarada Ogaadeniya iyo shacabka Soomaalida Ogaadeniya waddanka Koonfur Afrika ku nool qaadan mas'uuliyadda
هذا يوم أثنين عبد الرحمن سعيد وحكى الله هذا من أن كسر اليوم أما أن فكر كيسوي اليوم ودوبيها ما أنت أي أصلا كل رئيسي ثانية الصومالية وغيرها يدور صوت أفريقيا بشير كسر اليوم برنامج سيلي maxaad u sheegaysaa dowladda Ethiopia ee xasuuqa ka wada dadka Soomaalida Ogaadenya maxaad ka kala qabtaa xasuuqii ugu dambeeyay bismillaahi rahmaani rahiim marka hore ilaahay marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa TV-ga ilaahay codka naga qaadaya waxay la tahay kolka xiga waxaan salaamayaa dhammaan saaxiibadayda meeshan waqtiga dheer waxaan ku wada qaadanay dalka insha kolka waxaan leeyahay su-aasha uu hadda weydiiyey welihii way ahmaan maxaad kala socotaa Ethiopia xasuuq baa bay ka wadaa waddanka Ogaadenya siba maalmihii ugu dambeysay in walba ula socdaa gobollada sida ay u xasuuqeen gobolka Jaareed iyo Afriqeed Nagbeed iyo gobolka ay intibaasi sinaan ahay barjirayeen dadka reer Ogaadenya shalay rag baa qori loo qaaday oo haddana ka xukumayo كجديان يعرفها تاسنا واتو روح وبقى أو ما صومال تيجو تك إسلام كيجو كأدون ككلام أيوكي ولو يكتو على الحاجة أدونك وأين وقدر يأذون من أنا وأسلم قال من السجين تسليب الجين ويبدأ يفهم هذا نوع الله يعني تك صومال هذا ما هو يفهم وحوي تكلم أنا أترك أنا كوي جهات كذا وقدر يحسوقها يؤدي هذا ما وقفنا وأنا أقول تحسين عندما وين يروح عن شخصية أهم أي محسوب جالس يسجل من النهاية يروح أصلين السجال هذا وأنا أقول تحسين أنا توارى ملا إنت خلاص أنا ما ضيع كراك أنا وأنا قلت على النهاية أنا قدر قادم ويسقى حكاية إثيوبيا السودانية دعوني كم أفريقي إيو هاوشي هذا كان علينا باسل وسحتي كذا شغلي أدي الموضوع هذه يوم سيئة أنت صحيح روجك برنامج كيلي صوران تاني كي بارجي شنو إذا الشارية الصومالية وقاعدين يدرس صوت أفريقيا ويكون قبضين مقالة يمكن أن يحرق الشارية الصومالية وقاعدين وقود الأطلاع كمقالة تقدر تفيد عاصمة قبل كنيسة كي وقف عاصم إذا كي ما يوم برنامج كم إنه يسوق روحيين سوق جديد كمان صحافة أوها وبشار ذلك وقاعدين ويقول ريال إلى TV وهذا وقف إذا كي ما يوم ستة radio وراحي ميديا وقد نيوز اجنسي اليوم اذا عدك له او بدل ما كذا وضعنا كذا تفضلتان برنامج كان الي انت عن برنامج كان كفر من دونه وانا والله محمد حكي هي صاحب كي عمر تشيكا او اذا له سداس iyo قوتي دبا